السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجكني ما ogtahay qaybtiisii tobnaad. ma ogtahay in sadka aanbaynta uu ku dhalo geelu yahay 13 bilood, sadka adhiguna yahay 5 bilood, sadka looduna yahay 9 bilood, sadka maroodiguna yahay 21 bilood iyo 24 maalmood, halka sadka bisadaha iyo eeyaduna ay yahay 63 cisho oo qura. ma ogtahay in masaajidka barakeysan ee xaramku uu yahay masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhiso dhulka korkiisa. masaajidkan waxa dhisay labadii nabi ee isdhalay, Ibraahim iyo Ismaaciil calayhi salaam. masaajidkii labaad ee la dhisaana uu ahaa masaajidka Qudus oo uu dhisay Yacquub calayhi salaam. ma ogtahay in jirkeena meesha ugu adag ay tahay lakabka ugu sarreeya ilkaheena ee loo yaqaano enamel oo uu ka adag yahay lafaha. ma ogtahay in saxaabigii la dilay isagoon alle u sujuudin uu ahaa Cumar ibnu Saabit, wuxuuna soo islaamay dagaalkii Uxud, waxaana lagu dilay isla dagaalkaas. ma ogtahay in dhiigga xalaasha ahi uu yahay beerka iyo beeryarada. ma ogtahay in beerku jidhka uu u qabto shaqooyin fara badan oo ay culimada saynisku ku qiyaasaan 500 oo shaqo. ma ogtahay in beedka adduunka ugu weyn yahay beedka gorayada. ma ogtahay in xayawaanka kaliya ee calooshiisa dibadda keeni kara uu yahay ayax-badeedka. ma ogtahay in farasku awoodi karo inuu cagihiisa ku taagnaado bil dhan. ma ogtahay in xayawaanada duulo uu ugu dheereeyo shimbirka gorgorka, halkaas oo uu orodkiisu gaadho 360 mitir saacadiiba. ma ogtahay in maahmaahda tidhaahda hal libaax arkaysa ma godlato ay bixisay haweeney Soomaaliyeed.